بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عاو waxaan leeyahay soo gal asxaabay arin jirta aawadeed ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan ahay nin qaraaba oo ah nin oday adeerkay ah oo in ka badan 4 sano aan asi wada shaqeynay oo darajadeedii iyo ciidanimadeedii iyo lambarkayga ciidanimo aan dartiis u waayay ayaa maanta wuxuu sameeyay fal kii aniga uu ugu sameeyay ka daran oo aad iyo aad dadkii dhamay ay ula yaabeen oo ilaa hadda aan la yaabanahay aniga adeer gacaliye meeshaan waxa waaye nabar iyo naafo ma joogto waxaa joogo ururka xisbiga wadaniga ah yaa ee wada jir party ayaa jooga meeshaan ma joogto dufadii laga keenay yaa ma joogto mooryaanta dadka gaada ma joogto dadka cadaaladda ku xukuma jooga meesha xisbiga wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur guul ayaan leeyahay waxaa waaye taangiga waxaa waaye Soomaaliya ay ku dhaarato mustaqbalka taangiga Soomaaliya ay ku dhaarato mustaqbalka weeyaan adeer ma fahantin anigana hadda awlaad way taqaanino waxaan ahay ninkii Facebook friends kala ahaa ee Maxamed Kaarboy meeshaan ku baashaalayna waxaa waaye xirada gaashaandhigga ee dalka Soomaaliya laga xukumo إن شاء الله تعالى مرلو عبد الرحمن عبدالشكور كحكومي دون ماشان دلك عوانت ضدك ما كحكومي دون إن ما نقول بدك نجنا معنا الدرة اللي قد له والله بالله تالله وحن أقبل الدورة ما ضفر ضاي بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عاو waxaan leeyahay soo gal asxaabay arin jirta aawadeed ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan ahay nin qaraaba oo ah nin oday adeerkay ah oo in ka badan 4 sano aan asi wada shaqeynay oo darajadeedii iyo ciidanimadeedii iyo lambarkayga ciidanimo aan dartiis u waayay ayaa maanta wuxuu sameeyay fal kii aniga uu ugu sameeyay ka daran oo aad iyo aad dadkii dhamay ay ula yaabeen oo ilaa hadda aan la yaabanahay aniga waaba ugu dhacday waxay maanta tii aniga uu sameeyay mid ka daran oo ku sameeyay 20 wiil oo kumbosh ah oo askar ah oo ka tirsanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo asiga dartiis darajadooda ciidanimo iyo mushaarkooda iyo lambaradii ciidanka xoogga dalka ay kula hayeen dartiis u waayay oo waliba ah 20kaas wiil waxa waaye 20 wiil oo u dhalatay beesha ayr qaasatan beesha abariji oo aniga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka dhalanay waxa uu ku sameeyay 20kaas wiil oo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu ku daneystay oo dantii gobolka uu gaaray ayaa wuxuu sameeyay maanta 20 askari oo kumboosha wuxuu sameeyay 20kii wiil oo si goona inuu u beegsado wuxuu yiri gurigeyga ay faaruujiyaan waa masiibo waa arin aad iyo aad looga yaabo looga argagaxay war ninkaas wax qabta war talow ninkaas la qabto war ninkaas maxaa maleynaa inuu rajo iyo aayad damba uusan ka lahayn dhalinyaradaas maanta oo banaanka cidlada ku soo daadshay waxa iga sii daran dhalinyaradaas oo dartiis u takanowda oo darajadoodii iyo mushaarkoodii iyo lambarkoodii ciidanimo dartiis u waayay maanta meel ay miciin bidaan ma jirto meel waxa ka raadsanaya ciidankii dawladda meel waxa ka raadsanaya al-shabaab waa rag hubaysan maanta lambaradoodii dhamaay waxa aan dhibic wada saarantaa qaarna askar kale la siiyay asigana wuxuu yiri gurigeyga ay faaruujiyaan 20 askari waayo oo hubaysan oo kumboosha oo waliba u dhalatay beesha abariji markuu dantow lahay ku gaaray wuxuu yiri faliisamina gurigeyga iga baxa ilma adeer yaalow gacalaya ninkaasu Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasigaas adeerkay ah inuu maanta 20 askari oo waliba difada aan ka dhalanay asiga ee abariji oo falkaas kula dhaqaaqo miyay ka mudan yihiin raggii shalay difaacaya ee magaca iyo miisaanka u soo hooyay
ee naftooda u huraya oo qaar xitaa u naafoobay ee taangiga iyo beebaha iyo madaafiicda shalay la dulmarsiinaa lagu garaacayo dartiis naftooda asiga dartiis u huraya inuu maantaasi kula dhaqmo ma wax ka mudanba. war ilma adeeryaalow gacalayaalow waxaan idinka codsanayaa 20kaas askari waxay u dhasheen beesha habar iji beesha cayr beesha habar iji waa 20 askari oo ragga ugu qaalisanaa ah oo maanta gurigiisa wuxuu yiraahdaa ii baneeyaan. waxaan idinka codsanayaa Soomaaliyan beesha aan ka dhalanay habar iji in 20kaas askari loo gurmado ee jid iyo jahal loo baxsho ee la meeleeyo raggaasu. intaas idinka codsanayaa aad iyo aadayna ma aragtay meel ugu damqada wallahi dhalinyaradaas ma aragtay ku waayay dartiis darajadoodii iyo ma aragtay ciidanimadoodii waa dhibaato soo kordhay. Cabdiraxmaan Cabshukuur dadka ma aysan aqoonin aniga horey aan u bartay laakiin dhalinyarada maanta ma aragtay ayagana barasho wanaagsan aad bay u barteen. ninkaasu ma aragtay dantii oo lahayo ku gaaray kadibna maanta banaanku ku soo daadiyay dhalinyarada ayagoona maanta meel aan haysanin oo maanta hubkoodii wato oo dawladda xageeda ka takanaysan oo al-shabaab uu raadsanayo. waa dhibaato dhalinyaradaas caawa ku habsatay. ilaahay waxaan ka baryaa inuu jid khayr qabo u bixiyo u soo wada duceeyo. beesha habar ijina waxaan ka codsanayaa in dhalinyaradaas ma aragtay la meeleeyo ee ma aragtay jid loo bixiyo insha Allah ta'ala hala gaarsiiyo beesha aan ka dhalanay Soomaali weynay adinkana sheer gareeyo barasho wanaagsan ninkaas sidaas loo barto aniga horeyaan u bartay wabillahi tawfiiq waana ka baxay.